halkan waa bartaano youtube-ka ku leenahay Bina Live News idil ahaantiiba ku soo dhawaada warka maanta waxaa warkaasi idiin soo tubinaya anigoo cabdisamed labada xisbi mucaarid ee Somaliland oo cid iyo wadani ayaa hadda shir jaraa'id qabtay waa kan xisi cali xaaji xasan oo ka hadlaya arrintii wasiir maxamed kaahin uu shalay tola ku dhawaaqay fariin adag u diray shacabka Somaliland isla markaasina sheegay in ay qabsoomayaan mudaharadayaashii ay ku baaqeen waxa isaguna halkaas ka hadlay injineer Faysal Ali Xuseen ahna gudoomiyaha xisbiga oo cid musharaxa jagada madaxweynenimo ee la filayo inay 13 November ay dalka ka qabsoonto haddaba ugu horeyntii xirsi cali xaaji xasan ayaa hadalkiisa ku bilaabay waxa weeye xisbiyadu ay ku baaqeen qayladhaanta ka yeedhaysa dawladda iyo hadallada beenta isburinaya inaanu dadka u sheegno ayaan maanta u nimi waxaan jecelahay intaa kadib inaanu caddayno warka odhanaya ka soo yeedhay wasiirka dakhiliga ee odhanaya xisbiyada naga dalbaday ururadii baalka in loo kordhiyay ururadan ka wada hadalay wax noocaas kamaanaan wada hadlay ururada kamaanaan wada hadal furistooda anagu mar hore aanu sheegnay dariiqa sharciga loo mari doonaa waqtigooda iyo maalinteeda laga wada hadli doonaa waxa maanta laga wada hadlaya waa doorashadii madaxtooyada iyo komishinkii oo ay afduubeen iyo dalkii ay si guud u geliyeen yani mowqif xaraja dhibaato weyn ka taagan tahay haday tahay dhaqaalihii haday tahay waxa weeye sixir barra ka taagan haday tahay abaarta haday tahay duruufta xag walba leh ee bulshada ku habsatay ee xukuumaddii ka jawaabi lahayd ay ka gaabisay dariiqii labaad ee looga gudbi lahaana in xukuumadda la bedelaa waxa weeye hanaan sharciga in lagu bedelay inuu dhiganay waxa weeye waa doorasho waa hanaan dimuqraadiya waa tan noocaasa tii nooca ahayd oo ay curyaamiyeen oo ay afduubeen oo komishinkii doorashooyinka qaranka ay waxa weeye fargeliyeen oo madaxweynuhu fargeliyey oo ilaa hadda fargelintii ku hayo oo naloo soo sheegayo in maalinba xubnaha loo yeedhiyo komishinkood qaar la doonayo in la laalusho qaar la doonayo in barakshar la saaro ah iyo culays la saaro loogu hanjabayo la hadidayo si ay xilka u baneeyaan waxa ayaan dara ah oo la yaab leh afartii xubnood ee baarlamaanku aanu dhammaystirin oo xeerku guddi ku sheegaya markay dhammaystirmaan ee guddiga ururada loogu talagalay iyo axsaabta oo iyagoo aan hawshoodii dhammaan oo xubnahoodii dhammaan inta la dhaariy xafiiskii la fadhiisiyey iyo xafiiskii shaqaynaya komishinkee shantu joogeen lixdii aan lix iraahdo inan baa u maqnaa hal inanna wuxuu la yaalay waxa weeye xubintii uu cudow mar hore iscasilayo wuxuu la yaalay in ka badan 3 bilood ama 2 bilood in ku dhow ayuu la yaalay madaxtooyada yaalay oo ay hadinay gudbiyaan bal hadda u fiirso afartaa xubnoodna shaqaa degdeg loogu qabo because xukuumadda doonayso waxa iyadu doonayso sharci u taqaan lixdii xubnood ee kale ee komishinka ee shaqaynayay ee ay ahayd 20 bisha bilaabaan xukuumaddu lugtay qabatay waxa lugtay qabatay in gudoomiyahooda ay iska bedeleen oo iyagu xaq u leeyihiin inay goortii doonaan doortaan goortii doontaan bedelaan ayay waxay doonayaan inay ku khasbaan xafiiskii xubnihii waxa weeye barakshar baa la saaray xafiiskii waxa la yiri shaqaale waa la kala diray dhiijiigo aan sharci ahayn oo madaxtooyada laga soo magacaabay baa leeyahay xukumo marka waa wax la yaab leh taas marka waxaanu runtii ka digaynaa ka jawaabaynaa taageerayaasheeda ugu baaqaynaa inay ka jawaabaan arrinta noocaasa ee afduubka ah ee dimuqraadiyaddii la afduubayo ee dalkii lagu gelinayo madowga lagu gelinayo marka taageerayaasheeda waxaan u sheegaynaa hanaanka uu dastuurku inoo jideeyey ee qodobka 32 uu tilmaamayo qodobka 32 uu tilmaamayo waxa weeye inay xaq u leeyihiin inay dareenkooda muujiyaan oo banaanbax silmiya ku muujiyaan annana wax kale kama dalban dadka waxaanu ka dalbanaynaa inay xaq u leeyihiin oo dareenkooda muujin karaan waqtiga la gaaray iyo maalinta loo baahdo tan noocaasa ma aha ugub maaha waa curad yani waxaan horu jirin maaha way jiri jirtay waxa qof walow Somaliland uu ka helayaa YouTube-ka Muuse ku baaqayo oo wada oo nala mudaharaaday halkaan ka shalay ka mudaharaaday markii Muuse nala mudaharaaday maxamed kaahin kan maanta sheegay nala mudaharaaday yaanu kulmiye iyo cudahayn ee Faysal kan yahay aanu kulmiye ahayn anaguna ee halka laga mudaharaaday loo soo baxayay maalinta xalaal bay ahayd miya maantana waa xaraan miya ceeb weeye taas
waxaanu leenahay maalintaa waxay ahayd unbay maantana tahay wixii aad shalay samaynayseen baa maantana la samaynaya lagu baaqaya wax kale maaha ta noocaasa ayuunbaa maantana lagu baaqaya weliba maydaan samayn jirin ina waraaqa u gudbisaan annagu hanaanka sharcigaanu maraynaa waanu dhowraynaa waanu ilaalinaynaa waxaanu si cad u caddaynaynaa in aanu nabadgelyada dadka yaga farayno ilaalinayno leenahay taageerayaasheeda isbarbar taaga ciidamada ammaanka oo kala shaqeeya shaqadooda hadday qabsanayaan qolada xukuumadda le ammaan baa la ilaalinaya ammaanka waxay uga xil saarayn iyagaa mas-uulka ah ha ilaaliyaan ammaanka wixii looga baahan yahay laakiinse maaha ammaanku xuquuqda muwaadiniintoo loogu marmarsoodo ammaanka waxba gabood ha ka dhignina ammaanka muwaadiniinta ilaashata waana ilaashanaya